In la daaweeyo af-urka waxaa looga hortagi karaa duleelada ka soo baxa goosaha iyo ilkaha, sidoo kale cudurrada ku dhaca ciridka. Sidaas darteed waxaan maanta fiidiyogan kaga hadli doonnaa siyaabaha ugu wanaagsan ee loo daaweeyo af-urka ama neefta oo urto. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواد جنالك الدكتور أحمد يوسف كتخصصي عذرات جود iyo neef mareenka ama cudurrada ku dhaca feeraha. haddii aad janalka ku cusub tahay fadlan subscribe leh si aad noola socoto mar walba fadlan riix gambalaalka. maanta waxaa ka hadli doonaa sidee loo daaweeyaa af-urka ama neefta inay urto. in la daaweeyo af-urka waxaa looga hortagi karaa duleelada ka soo baxa goosaha iyo ilkaha, sidoo kale cudurrada ku dhaca ciridka. daaweynta af-urka aad ayay u kala duwan tahay, waxayna ku xiran tahay mar walba xaaladda caafimaad ee sababtay inuu ku dhaco qofka af-urka. haddii aad doonayso inaad wax badan ka ogaato xaaladaha caafimaad ee sababi kara af-urka, fadlan daawo fiidiyoga aan horay uga soo hadalnay waxyaabaha keena af-urka ama neefta in ay urto. boqolkiiba 90 af-urka wuxuu ka imaadaa afka haddii ay ahaan lahayd nadaafad darro ama cudur ku dhacay afka. boqolkiiba 10 waxaa sababa af-urka xubno kale oo jirka ka mid ah, kuwaasoo ay ku dhaceen cudurro kala duwan. sidaas darteed waxaan maanta fiidiyogan kaga hadli doonnaa siyaabaha ugu wanaagsan ee loo daaweeyo af-urka ama neefta oo urto. daaweynta waxaan u kala qaadaynaa ilaa 2 qaybood. daaweynta koowaad waa in habnololeedka qofka uu wax ka beddelaa. daaweynta labaadna waa inuu qofka dhakhtarkiisa la xiriiraa. daaweynta koowaad, habnololeedka qofka inuu wax ka beddelo waxay kaa caawinaysaa inuu daaweeyo ama ka hortaga af-urka. sidaas darteed qof walba oo doonaya inuu la tacaalo xaaladdan waa inuu 7 qodob ee soo socota uu fuliyaa. qodobka koowaad, qofka waa inuu cadaystaa cuntada kadib. si uu qofka u fuliyo qodobkaas wuxuu u baahan yahay inuu si wanaagsan u yaqaano sida ugu saxsan ee afka loo cadaysto wasaqdana looga dhammeeyo. sidoo kale meel walba uu ku sugan yahay waa inuu wataa buraashkiisa ama cadaygiisa. waa in daawada uu ku cadaysanayo ama toothpastiga ay ku jirto maaddo la yidhaahdo fluoride iyo jeermis dile ama antibacterial properties, kuwaasoo aad u yareynaya afka qofka inuu uro. qodobka labaad, qofka waa inuu maalinkii 2 jeer findhicishaa ama faloosin uu sameeyaa. qofka haddii uu si saxa u findhicisho ama falooska uu u sameeyo, cuntada ilkihiisa iyo goosihiisa ku hartay kulligeed si fudud ayuu iskaga soo saari karaa, maadaama haddii ay goosaha cuntada qaybo ka mida ay ku raagto ama ay ku harto ay sababayso inay cuntadii meesha ku qurunto, hadhowna ay sii siyaadiso dhibaatada af-urka ama qofka afkiisa inuu zaa'id u sii uro si kasta uu qofku u cadaysto xitaa. qodobka saddexaad, carabka oo si saxa loo cadeeyo. carabka waa meesha ugu bakteeriyada badan afka, sidaas darteed waxaa loo baahan yahay in si taxadar iyo dulqaad leh loo nadiifiyo mar walba ugu yaraan 2 jeer maalinkii si loo yareeyo af-urka. dadka carabka aan nadiifinin waxaa aad ugu tarmo ama aad ugu bato bakteeriyada afka. waxyaabaha uga sii darana waxaa ka mid ah sigaarka iyo oonka faraha badan oo keenaya inuu afka qalalo. marka haddii aad balwad leedahay, isku day inaad ka fakarto nadaafadda carabkaaga in badan, maadaama bakteeriyada iyo kiimikaaliska adag ay ku dhegayaan carabkaaga kuuna horseedayaan in afka uu uro. qodobka afaraad, iska ilaali afqaleelka ama oonka. afka mar walba si looga ilaaliyo qaleelka uu u ahaado qoyaan, waxaa loo baahan yahay qofka inuu isticmaalin tubaakada noocay rabta ha ahaato iyo daawo aan dhakhtar soo qorin, sababtoo ah labadooda waxay aad u sababayaan afka inuu qalalo. waxaa kaloo loo baahan yahay qofka inuu la diriro mar walba oonka. siyaabaha ugu fududna waa taqaaniin kulligiin, waa inuu mar walba biyo badan cabaa qofka si afkiisa uu mar walba u noqdo qoyaan iyo nadiif. qodobka shanaad, hagaajinta cuntada. qofka waa inuu iska ilaaliyaa isticmaalka kafayga badan, khamrada, cabitaanada fudud. cunto walba iyo cabitaan walba oo sokor aad u fara badan ay ku jirto. haddii uu qofka isticmaalo basal ama tun, waa inuu afkiisa cadayaa ama nadiifiyaa. haddii uu qofka nadiifinin, waa ognahay dhammaanteen in tuunta iyo basasha ay si adag carabka ugu dhagaan iyo afka, wayna adkaanaysaa markaas qofka inay si fudud afkiisa markaas ay uga go'do. waxaa loo baahan yahay marka qofka mar walbeeto cunno ay ku jirto ama si caadi haddii uu isticmaalo basashii tuunta in uu markaas aad u cadayaa ama nadiifiyaa. qodobka 6,
nadiifi qalabka aad ilkahaaga u isticmaalaysid. haddii aad tahay qof ilkaha ay braces ugu jiraan ama ilkaha ay ugu xiran yihiin bir ama ilka feyga wato, waa inaad si joogtaa u nadiifisaa maalinkii ilaa 3 jeer. sidoo kale isku day inaad isticmaashid mar walba buraash nadiif ah ama caday nadiif ah. waxay dhaqaatiirta ilkaha kula taliyaan qof walba in uu isticmaalo hal buraash bil ilaa 2 bil. qofka haddii uu isticmaalayo cadayna waxaa wanaagsan in uu isticmaalo usbuucii hal caday inuu isticmaalo, kadibna inuu cadayga iska tuuro. ma wanaagsana cadayga markuu qalalo kadib inuu qofka isticmaalo. qodobka 7, qorshey inaad afkaaga jeegarayso mar walba. sida badan waxaa wanaagsan sanadkii 2 jeer in qof walba uu afkiisa soo baaro, dhakhtarka ilkahana uu u tago. maadaama aan maalin walba isticmaalayna afka, waxaa ku dhici kara cudurro aad u kala duwan. sidaas darteed sida keliya ugu fudud oo looga hortegi karo waa in qofka uu isjeegareeyaa 6 bilood mar ama sanadkii 2 jeer. waxaa aad u fududaanaysa markaas qofka in xaaladiisa caafimaadna laga warhaayo, dhibaatooyin aad u fara badanna aysan ku dhicin. waxaad ka badbaadi kartaa qaliimo, daaweyn qaali ah, xanuun iyo caafimaad daro aad u liidato. qofka haddii uu marka tilaabooyinkan si saxa u qaado oo 6 biloodba mar haddii uu heli karo uu u taga dhakhtarka ilkaha, wuxuu ka hortegi karaa cudurro aad u fara badan. marka 6 bilood mar u tag dhakhtarkaaga si aad isku soo baarto ood u ogaato xaaladaada caafimaad. sidoo kalena si lagaaga nadiifiyo wasaqda 6 bilood ee lasoo dhaafay ilkahaaga ku hartay oo meelaha adiga aan nadiifin karin kaa gashay. dadka caadiga ah lama mid ahan dadka kale ee ilkaha biraha ku xirta ama braceska ku xirto. ayaga waxay u baahan yihiin in ay sanadkii 2 jeer ka badan ay u tagaan dhakhtarka, waxayna ku xiran tahay dhakhtarka ballamaha uu u dhigo. intaas waa 7 qodob ee daaweynta koowaad. hadda waxaan ka hadli doonaa qaybta 2 ee daaweynta. daaweynta 2 waa inuu qofka la xiriiraa dhakhtarkiisa haddii uu af urka joogto ahaado, asagoo qofka qaab nololeedkiisa iyo nadaafadiisa aad u hagaajiyay. dhakhtarka inta aad u tagin waxyaabaha lagaa rabo waxaa ka mid ah inaad subaxii waqti hore aad u tagto si neeftaada loo baara adigoo aan waxba cunin. sidoo kale marka aad dhakhtarka u tegaysid waa inaadan marsanin barfuun, rooseeto, kareem ama saabuun aad u carfayo, sababtoo ah kulligood waxay qaldayaan baaritaanka lagu samaynayo maadaama la rabo in la xaqiijiyo neefta qofka inay urayso. haddii aad isticmaasho qalajiye ama antibiotics mar u dhow waqtiga aad dhakhtarka la kulmaysid, waxaad u baahan tahay inaad wacdid xarunta dhakhtarkaagana loo sheego haddii uu baajinayo ballanta uu waqti kaleeto ee daawada korkaaga ka baxday uu ka dhigayo iyo in kale. marka aad u tagtid dhakhtarka, waxaa laga yaabaa dhakhtarka in uu garto in dhibaatada qofka ku sababaysa af urka ay ahayn nadaafad daro, oo qofka nadaafadda afkiisa ay aad u wanaagsan tahay, laakiin uu qabo cudurro kale oo sababaya af urka. sidaas darteed waxaa laga yaabaa in dhakhtarka uu ku diro kombiyuutarro kala duwan, tubooyinka kaamirada leh ee dheefshiidka lagu soo baaro. cudurrada qaarna waxaa laga yaabaa in qaliimo lagugu sameeyo si loo saxo cilladda jirta markaas iyo wixii la mid ah. sidaas darteed waxaa wanaagsan in uu qofka leeyahay hal dhakhtar uu garanayo inuu dhakhtar sax ah yahay, uu wax soo bartay, si uu u siiyo talada tan ugu wanaagsan iyo daaweyn aad u fiican. xitaa dhakhtarka wuxuu kuu samayn karaa haddii aad u baahan tahay markaas dhakhtar kale oo takhasuskiisa ka duwan, in uu markaas dhakhtarka ugu fiican uu kugu caawiyo oo kuu sheego uuna kuu diro. markaas waxaa meeshaas ka baxaysa qofka in uu markaas sirmin ama qof walba oo goob caafimaad ah taagan ama dhakhtar sheeganaya asaga oon ahayn ama qof aan u lahayn aqoon ku filan. intaasba waxyaabaha looga badbaadi karo waa inaad haysatid dhakhtar kula taliyo oo ku gaar ah mar walba. marka la helo dhakhtarka saxda ana waa in la qaato taladiisa. aad ayay noogu badan tahay bulshadeena Soomaaliyeed in dhakhtarka taladiisa aan la fulin ama qayb ka mid ah in la fuliyo, qofkiina uu weli ka cabanayo cudurradii ama dhibaatadii uu kow dhakhtarka uu ugu tagay, lagana yaabo markaas in uu marba dhakhtar uu u tago. sidaas darteed waxaan idinku baraarujinayaa inaad mar walba awaamiirta dhaqaatiirta aad fulisaan si xaalkiina caafimaad loogu guulaysto. sidoo kale su'aal walba uu dhakhtarka ku weydiiyo si run ah uga jawaab, waxay aad u kaalmeynaysaa in la helo cudurka ku haya markaas. intaas waa talo caafimaad. wax walba si aad u qabatid waxaad u baahan tahay inaad ku baraarugsan tahay, og tahay. sidaas darteed waxaan mar walba idinla garab taagannahay inaan idin siino talooyin caafimaad ugu wanaagsan oo la hubo, kuna salaysan aqoon la xaqiijiyey, qof walbana uu heli karo. waxaan idin rajaynayaa inaad ka faa'iideen fiidiyogan.
إن شاء الله أسبوع والبو waxaan soo dhigi doonaa 3 video oo muhiim ah wixii talo iyo tusaale ah fadlan inoogu soo dir commentiga sidoo kale noogu soo dir commentiga mowduuci aad doonaysa in laga soo hadlo si aad mar walba noola socoto fadlan subscribe saar aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin walaalayaal waa inoo mar kale iyo video kale wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh